baraha bulshada dhawaanahanba waxaa la isla dhaxmarayay arinta la xiriirtay YouTuberada lagu magacaabo Queen Xafsa iyo Cadnaan Model oo isna YouTubera balse Queen Xafsa oo ka hadashay arinka ayaa arimo badan oo ay dadku ku wareersanaayeen banaanka soo dhigtay geesta kale waxay daaha ka qaaday in shakhsi iyada xiriir uu kala dhaxeeyo marnaba YouTube uusan soo fadhiisan doonin haddaba arimo badan oo aad daawade wax badan aadan ka ogeyn ayaan daaha ka qaadi doonaa iyo qisada qabsatay Cadnaan Model fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade waxa muddooyinkan baraha bulshada ay ku wada xiriirto qabsaday arinta ka dhaxaysa Cadnaan Model iyo Xafsa Queen kadib Cadnaan Model waraysi uu siiyay lamaanayaasha kala ah Adna iyo waliba Saxaaf waxaana taasi ay abuurtay in dhammaan dadka isticmaala baraha bulshada ay ku xantaan Xafsa Queen YouTuber-ka lagu magacaabo Cadnaan Model balse Xafsa Queen oo ka soo hadashay arinka ayaa arimo badan banaanka soo dhigtay waxaana ay sheegtay inay jiraan wiilal iyadu ay saaxiib la tahay oo uga dhow Cadnaan Model balse aysan soo dhigin iyada waxaana ay sheegtay in muuqaalada TikTok-ga oo iyada ay la duubtay isaga views ama daawasho ay uga raadinaysay Cadnaan Model saaxiibtinimo caadi ah naga dhaxayso like walaalo dad oo iga dhawey jiraan oo saaxiib asaga iga dhawey jiraan wiliga ama ay waarteen waa maya wiilal iga dhaw saaxiibanahay saaxiib oo wax kasta u sheegto way jiraan oo asaga iga sii dhow laakiin inaan ina imaadmaan in sheeg waa maya sheekadan dhan video oo TikTok ku bilowday TikTok hadii la isla duubo oo qofkan views ku helaysid oo qofkii views kugu duubo ma ina video-ga advantage ka dhigtid ama meel kasta dhigtid qofkan waxa naga dhaxay aadaadid aada ugu qaldad su'aasha sita walaalkayga waa ka saxaya geesta kale waxay sheegtay in aysan wali arkin jacayl saaxiib isku bedelaya balse uu dhimasho balansanayo fasirin kartaa uu dhahay labadina wax loo fasirna ma lahan su'aal lagu weydiiyay su'aasha dhinacna ugu jawaabta loo baahan yahay tan kale kalhoona oo anigu ma arkin saaxiib jacayl isku bedelaya like waxa ku arkay shaaruqan oo dhimanay dhimasho balansanaysa geesta kale waxay si cadaaha uga qaaday in shakhsiyada xiriir uu kala dhaxeeyo in YouTube aysan la soo fadhiisan doonin maadaama YouTuberadan horay ay u kala tageen Rashka Boy aysanna doonayn mar kale in qofka xiriirka kala dhaxeeyo uu la soo fadhiisto YouTube waxaan naga dhaxayso wiilkan ay kala hadlo saaxiib caadi anaga dhaxeeyo nothing else tan labaad aniga qofka jecel ama qofka kale ha ka sugan in aan naftirkayga ku keeno YouTube never TikTok isla wareegno ama YouTube wareegno WhatsApp laakiin YouTube nolosheeda maya ninka jecel YouTube ma la iimaanay kuma hadsanid daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like saar daawade oo la wadaag saaxiibadaada kuma hadsanid daawade la jaanqaadka oo nagu soo biir daawade